isla markaasina horteeda fadhiyo fanaaniin waaweyn maamooyin waaweyn oo Soomaaliyeed fanaaniinta Soomaaliyeed caanka aad u jeceshihiin in badan oo idin ka mid ah anaga inaad jeceshihiin ayaa barnaamijka martiiga waxaa barnaamijka martiiga ah Hiba Maxamed Gudoon Hiba Nuura iyo walibana Cadar Axmed Kaahin oo labadoodaba aad ku taqaaneen rubaayadaha caanka ah ee Soomaalida iyo heesaha Soomaalida ee hore soo dhawaada marka hore Jubaland TV ku soo dhawaada Jubaland ku soo dhawaada Kismaayo ku soo dhawaada ما شاء الله ودونهي أدنى وكاجم هاد علينا سود وين تقيمها يا قدر أنت مضن أدي أدنى واحد وطاي قبل ما ركتكوا هبون ندد ورئيسته أنت يعني نستغني ما أنت ود ما تصنت وما تصنت هاي عاد رح نتكلم سودو أدي أدوان دوهي هبي بان تذكرها هاي إمشهد عنه هالكلام أدبد ما تصنت ما شاء الله أدبد ما تصنت هاي أدي أدبني مركل يدين سودو وين هي الواحد يجور هنتان لبدينا بواحد صومت سنة يبنوا رانكو هرمريا واحد كسمايا دي معتين يجور كسمايا يو درين كاجا يو مركب هوريسي ويان فيليا ما هو مركي أفراد ما لها يعني ما روايدها تكون يتكتب برسالة هاي ما شاء الله يجور كسمايا ما أنت مركز دركتي حلي قدام بيسي حيس بدلوا كسمايا مركي قدام بيسي وحيد دولتي كعنكي حوق بدنا يتباشرتي inkastoo wax badan la qabtay ilaa maanta intii aan dariiqyada marmaraynay haddana wixii horaa ka sii badnaa ee dumay marka magaalo dhalaalayso oo fiican oo aad u qiimo badan bay ahayd laakiin sidii wixii noo gaadheen wax badan baa la qabtay aadna waan ugu farxay jidadkii meelihii la dhisay wasaaradii oo dib loo soo wada celiyey muxuu ahaayey oo dhowr wasaaradoodba meel laga dhisay bangiyadii oo shaqaynaya isbartiibadii oo shaqaynaysa TV-gii oo shaqaynaysa baarlamaankii oo dib loo dhisay airportkii oo dib loo dhisay farxad aad u badan baa ka muuqata runtii ما شاء الله هذه عاد رحمة كاهد مركله أدينا سودو وبان كله هاي واحد كوجا حسوستا dadku in badan kugu xasuustaan ruwaayadii qabyo oo door aad u muhiim ah kama talaysay hadaan dadka xasuusina Cad Axmed Kaahin waxay ahayd gabadhii xilligaas rubaayada matalaysa gabadha maaragtay ninka dhaqanka Soomaaliyeed ninka wanaagsan ee Soomaalida la jinsiga gabadha raacaysa baad Soomaa hadaan khaldanayo aad iyo aad wax yar waxaan jeclahay inaan dib noo xasuusiyo taariikhdaadii faneeda iyo maaragtay halka fanka ka soo bilowday iyo wax yar dadweynaha dib ugu celino waxaan kaas bilaabay xamar baan ka bilaabay laakiin kama shaqeynin in badan markaan bilowga ah hargeysa ka shaqeeyay waa bari hargeysaan ahaa annagoo goboladii waa bari hargeysa ayaan xitaa laba jeer halka nimi oo Kismaayo nimi bari samaadkii marka waa ka AD-gii baan soo galay insha Allah ka bacdina markaad qurbaha tagtay bal waxaad iga warantaa qaabkii aad ula qabsateen markaad qurbaha tagteen waxaan arkay inaad soo matalayseen rubaayado maaragtay wacyiga Soomaalida iyo gubaba qaabkeed ula qabsateen والله أنا هيبة متكيف مربوي من مريكان أنا كل كان مريكان تجي وحناها هويو عرور يرين وضعت الماء تبنشر تبنها بين شيران وتي مركا روايات إيه وحبا بكم الله حنين وحن بالوطن كسان ورقب سان لها أيام قبل يسدي يقول له لها سان إسكول له ودقان لهين سان وأفك وطن كوبران لهين سان شقوين وهل لهين رنتي وان قال إسكول الذي وان قال إلا هير جامعة عدد ما كجاري إسكول كي مركه هران أفكار برانس لها شقويين بدل ما كقبتي عرورتي ما شاء الله ويجونا ويجوا وين ذن هذا وها كشقية هيد لينا ويلشر إنترناشنال أو إنترناشنال كشقية وحنبرتي برنامج لينا public health أمبرتي وانكو شقية إلا هذا ما شاء الله أدوان إسكال قبصنا ده داني كتير ده محل سميني وهاللي مقال سدي مارتي لقي هاي والقاء هذا الحمد لله ساس ويان فنكنا فنانين تي مركز يسوي يمادين وحقاء أدوه إلا 2003 4 كي بقى يسوي جروب يسوي يمادين أنا جي هبة يبقى يسوني محمد عبد الله السنجوب يو سلا دربي يو سادة علي يو أحمد علي عقال يو جروب يسوي يمي أدوه جروب أنا جي هبة أنا كنت رنو تدنا يو فادو على الكرومة وكندا نوقتني قبي طوبا ودقني أنا كل عذرهان برنامج كلنا وانسميه اللي يهدو فليتيرتين أو كور رما يدقن كمريكان يدقن كأنه هو رأي سيدي تدك إمجرنتيجا أما تدك عصبي سيدي كويهن مركب ود القرباء يبادنا كسميني مركب يقدم بيسي فانكي وان كبحي
waan iska daayey laymankaa kalaan iska galay weliba ilaahay hortii baan uga baxay fanka marka fanku halkaas ku jiraa laakiin dee taytalkii wuu hari waaye fanku aad iyo aad si wanaagsan aad waa mahadsan tahay hiba maxamed hiba nuura ayadana rubaadaasi qabyatu waxaan ka xasuustaa heestii afrikii waa dhulkayga waan ku dhimanayaa inaan dhex tagaan rabaa waxaan u malaynayaa lastig waad joogtaa afrika soo maaha aad iyo aad maasha allah bal nooga waran heestaasi rubaayadaasi qaabkay heestaasi aad ugu soo gashay ruwaadaasi waxay ku jirtay ruwaadii sungub lahaa ee ahayd maxaydana qabyatu waxaanan ka sheekaynaynay dareenka waddanka guud ahaan afrika gaar ahaana geeska afrika inuu lama huraan yahay lama huraan waa cawd jilaal bay soomaalidu tidhaahdaa dadka waxaan dareysiinayna dhulka ku nool inay ka yimaadeen khaasatan caruurta inay dhul leeyihiin inuu dhulkaasi muhiim yahay inaan gaajo oolin inaan haraad ool in lagu noolaan karo in aad uu qurux badan yahay midabka iyagu maaragtay haa marka adigu waxay bixinaysay tusaalooyin badan bay bixinaysay maasha allah waan gartay aad baa mahadsan tahay waxaan usoo laabanahay cadar axmed kaahin cadar bal waxaad iga warantaa guud ahaanba dalka xilligii kuugu dambeysay adiga iyo wacyiga maanta jiriya dalku say wax u socdaan maxaa isbedela dee dalka iyo wixii ka dhacay waddanka soomaaliyeed qof kasta uu og yahay anigu dadkii waan ahaa 91dii markii qacdii ugu horreysay ay dhacdayba dadkii ugu fulaysanaa ee durbab cabaxsaday baan ahaa ha nairobi kenyaan galay kenyaan dadna maraykan ka sii aaday markaa waddanku wax badan ba isbedelay horta xamar baan tegey waan meel aan garto waan waayey meel kasta markii la ii sheego baan iska yaraa suuraynayay laakiin waan garan waayey gurigii sii jeeday wuu soo jeeday wuu sii jeedaa hadda daartii gaabnayd way dheer tahay meelay daari ku taallay haddii la doono wax kaleba ku yaala aduu xamar waan garan waayey laakiin waan ku farxay in badan baan gocanayay goormaa tegaysa 10 sano oo hadda lasoo dhaafayba waan soo socday waddankaan ku soo socday ee waan haleeli lahaa marka xanuun badan oo dal tabiica baa iga hadhay aad baan ugu farxay markaan xamar imi yacni meel aan ciriyo dhul meel aan jooga waan iskarin waayey farxad daraaddeed sidoo kale kismaayo markaan imi iyadana sidoo kale aad iyo aad ugu farxay weliba kismaayo sidaan moodayba ma bahaba aad bay kismaayo u qurux badan tahay aad anigu haa 2 jeer horaan imi aad bay kismaayo qurux badan tahay weliba way habaysan tahay marka la eego wadooyinka habka uu yacnihii waxaa jira magaalooyin markuu sharcigu iska lumo hareeraheeda lagu ganacsanayo oo buuqa iyo laamiyadii iyo baabuurtii iyo wixii isdhexyaac ma laha way habaysan tahay waxaa kaloo kasoo helay xilligii kuugu dambeysay kismaayo iyo hadda wallaahi bilaahi waa dee anaa isbedelay mooye iyadu xitaa aad sumay sii bedeleen runtii hadda kismaayo wixii dumay waa la dhisay wax kalena uu kusoo kordho cusube laakiin aniga isbedelo dee weynaaday oo ina yar baan ahaa markaan imanayay waxaan aad iyo aad maanta uga helay maanta waa markii Jubbaland badisay kubadda dadweynaha dhex ordayay maanta hir ciyaala oo malaayiin oo mudadaad soo rugmaday ayaa saas noo dhafay oo faraxsan aad u faraxsan yacni barisabaadkiiba igu damay dad saa u farxa wallaahi oo bilaahi waan jidhcooda ilma isku kay soo taagtay yacni farxadda maana arag dad Soomaaliyeed oo sanadahan u faraxsan dad Soomaaliyeed oo ooyaya mooyee ama muraar dilaacsan ama niyad jabsan mooyaane yacni kismaayo maanta farxadeedii aad baan uga helay waxa kale oo aadnay goobweyn waanu tagnay meeshuu wabigu kaga darayay biyaha wabiga butaaci badda meel fog kaga daray biyihiisa kaydsada bulshadaydu may oran muruqna waa bilaashkii fanaaniintu waa horay tiri markaas maantana waan sii xaqiijiyay aad baan anigu uga helay kismaayo aad iyo aad maasha allah aad iyo aad mar kale ayaan ku leenahay annaguna soo dhawo oo maaragtay waxaan idin leenahay mar kale soo dhawaadaan idin leenahay waa tahay hiba nuura in badan ba maaragtay badan baa wax laga weydiiyay taariikhdaada faneed iyo maaragtay in badan baa wax laga weydiiyay kuma laabanayo waxaan ku weydiin lahaa su'aal yar oo ah fanaaniinta hadda jooga iyo fanaaniintii xilligii idinku 82 aad heesayseen rubaayadaha kismaayo aad ku qaban jirteen iyo maxaa farqiyo u dhaxeeyo fanka maxaa iska bedel wallahi horta waqtigii la joogaba fanku wuxuu leeyahay dadku habboon oo talenta
hadday actar tahay, hadday heestaa tahay, hadday muusishan tahay, iyo hadday jilaa tahay, iyo hadday ciyaartoy tahayba. marka anigu midda kaliya indhahayo 5 qaybood ee uu ka koobnaa fanku 4 meeshaba kuma jirto. waxa kaliya imika taagan oo laga shaqeeyaa waa actarnimada iyo heesaanimada. heesaaga 5 qaybood waxa nooga sheegay 5 qaybood waa maalifiinta, waa malaxanka, waa heesaaga, waa jilaaga iyo weliba farshaxanka gacanta. marka hadda qaybo badan ma shaqeeyaan farshaxanka gacanta iyo waxa shaqeeya heesaaga iyo actoriska. waqti walibana waxa on talent dad ay jiranina ma jirto. waqti kastoo jira dadkiisu waa haystaa. fanaanin badan oo cod fiican baa jirta, qaar badan oo actorisa jira, qaar badan oo maalifiinina way jiraan. marka ma aragtay meesha ma madna wax badan baa yaala. waxaa leedahay halkaas ka sii halkaa laga sii wadaa. waa tahay Hibanura marka la soo dhawow kismaayo ku soo dhawow waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo rubaayadahaaga daawan jiray in aan caawo ku fadhiyo. mar kale aan ku faraxsanahay soo dhawow baan ku leeyahay. bal waxaad iga warantaa maanta waxaad tagteen goob weyn oo deegaanka Jubbaland marka la yimaado goobaha dadku ay ugu jecel yihiin markaasba nagay ay yiraahdaan. horta maasha Allah tabaarakallah magaaladani ama gobolkani wuxuu dheeryahay gobolada kale ama dawlad goboleedkani meel ay ku kulanta geeli iyo lo'di iyo arigii iyo badii iyo kalluunkii iyo caradii cadayd iyo midii casayd iyo midii dhoobaydahay gobolkan uma jira. cayn baa la yiraahdaa. maanta markaan saa u daawanayna yar markaan socono carro guduudan baan galaa. markaan haddana yar socono tii dhoobaydooday caanba ku tahay beeraha. in yar markaan soconona tii bacaadka ahaydoo maanta waxaa jirtay dabaylo taasaa lagu soo hurguftay. marka gobolkani waa gobol ujeedo badan la yidhaahdo. maraykanku wuxuu leeyahay gobol kaloo kale California ku taallaa, waa gobolka ugu qiimo badan gobolada Maraykanka. dhan beerihii buu leeyahay, xoolihii buu leeyahay, saxarihii buu leeyahay, dhulkii qurxanaa buu leeyahay. Jubbalandna waa la mid. marka waxaad leedahay hibay miya waa California-di Soomaaliya. sidaasay u egtahay. waxaan intaa ku darayaa anigu markii hore in Soomaaliya anigoo ka maqan imika 4 sano ku dar anigoo 23 sanadood ka maqan ayaan ku soo noqday. marka dayaaradda intaa soo socday qalin iyo warqad baan qaatay, tix baan soo curiyey. tixdiina airborkan ka sheegay. tixdaasi waxay odhan jirtay hawadiisii udgoonayd dhulkaan u hilooban ku hawaaweeye abid hiyigaa ku farxo jacayl baan u hayaa. bulshadan la halmaalay halkaan ku korayaan ku soo hana qaaday dareenka iyo hagaay ma hilmaami karayo. waa hoygan ku dhashay aabiyo hooyo oo hiyigayga kama baxo. haddaan marun heshiino webiyadaa haraaciya waa kuwii maanta aan arkay beerahan ku hagaynaa. heeraarka reer Afrika dalka ugu baddheeree khayraadkooda laga hinaasto ari iyo geel hodan ku ah lo'da iyo fardaha lagu hubo horimayne allahayow dal nabad helo hooda badanoo la haybsado u ahaado. colaaddu wayna heertay nabad wada huwadoo ana saagan higsane hubka naga dhiga. ubadkeenna hama jabay ha u hagaagta rajaduye dugsiyaalu habeeyo hor ilaahay ku heshiiyo oo hubka naga dhiga. maasha Allah ilaahay ku barakeeyaan ku leeyahay xigmada dadka awaaninta hal abuurka Soomaaliyeed ka mid tahay sidoo kale waxaan arkay tix yar oo aad iyo aad u qiiro badan oo ka sameysay dhacdadii 14 Oktoobar Muqdisho ka dhacday. Soomaalida caalamkay waa cibaariye yaabe aqli laawayaashii caruurta iyo maatada iyo dadkooda ay caawin lahaayeen intay cirib tireen oo misana ku cadaabeen adduunka ayaan caawinaynaaye casho qura intaan unilayn aan cunaha marinay laynbaan bar ka soo celinaynaayo caalamkaba dhammaantii iyo caradaan u dhalanayba cirif kasta intaan isaga keenno oo doolarku uu cadad beelo ha cajiiba adduunku. calaamadaha dowladnimana cududaa ka koowe ciidanka laynoo carbinaya haynaga daafcaan cadaawaha caruurtaynu dhalayna
cidhibtooda dambeeto intay soo camiraan ha ku nagaadaan caradooda oo weliba iyagoon cabsanaynin intay ku caweeyaan oy ku caana maalaan ciiday u dhasheen cirirku haynaga guuro aad baad u mahadsan tahay waxaad wax nooga sheegtaa wadamada qurbahadin badan ku noolayd ood soo aragtay in sidoo kalena ma tihid fanaaniinta inta badan dalka ee ka hel jiray waad soo iman jirtay waad soo booqan jirtay bal waxaad nooga wartaa xaaladda Soomaaliya maanta uu marayso waxaan filayaa dawladdii dhexna waad soo aragtay burburkii waad ogeyd xilligan xaadirka ah wadanku xaaladdu maray maxaad ku tilmaami lahayd wallaahi wadanka waxaan ku tilmaami lahaa waxaan horta dagaal ku jiray 30 sano kii ugu adkaa 30 sano laga bilaabo 87 ilaa hadda inta 10 sano xumayna qabsan waa intaan dagaalka xiisaha u qabneen istilaynay 2000 markii laga bilaabay ayaa waxaan soo jeesanay dalkeena inaan wax ka qabano iyo inaan dawladnimadii dib u soo cashano wada yareed adugu calankeena waa laga laabay caalamka 2000 baa la soo celiyay intii ka dambeysana waxa soo maray 5 dawladood mid waliba waxbay soo qabatay maanta tii ugu dambeysana wax weyn bay qabatay marka marxaladda uu marayo marxaladda aadka u qurux badan waxaan jecelahay in tii timaadabana wax ku sii darto markay wax ku sii dartana dee Soomaaliya aan la higsan karin ayaan noqonaynaa Soomaaliya aan laba higsan karin ayaan noqonaynaa marwo dhinacii fanka adiga hibigu doon ahaantaada ma ismaac salaamayeen mise weli waxbaad ku lug leedahay may xagga suugaanta yani lagu badan yahay fanku ka mid tahay suugaantu xaggaas igaga hadhay laakiin xaggii kale waan ka farxashay dee meesha anigoo aad u yeelan soo bilaabay ilaa maanta inaan kor taagnaado caqliguba ma yeelayo waad mahadsan tahay su-aalkaas lamida waxaan weydiin lahaa Cabdi Axmed Kaahin fanka miyaad ismaac salaamayeen oo wax fan hadda lagu marihid mise weli 20 sano ay ku sii dhawdahayba waa ilaa 15 sano shaqo kuma lihin laakiin Soomaalinimadaydi mayna dhamaanin haday suugaan tahay haday wacyi gelin tahay haday waana tahay de waxan waa wax jidhkaaga ku abuurano marka dhinacii kale hiba waxay u bixisay fan xalaal because waxa la yiri miiska ba xaraan ereyada af Soomaaliga xaraan maaha marka waxaanu dadka ugu tari karaynaa iyo waxaan wax ku wacyi gelin karaynaa iyo waxaan wax bari karaynaa de waan wadaynaa wadaniyadiina de dadkii wadanka wax ka dhisay yaanu kamid nahay marka anaguna de wax weeyaan anagu muruq maana ku shaqeynayna afbooha de sidii maan u wadaynaa waanadii iyo uga tusaaleyntii waata kaalin teel ay bulshada kaga jiraa bad isleedahay fanku bismillaahir rahmaanir rahiim in Soomaalidu berigii hore library iyo mayna lahayn meel ay wax ku kaydsadaan iyo buugaag iyo may jiri jirin waxa wax inoo kaydin jiray ama aynu wax walba oo taariikh ah oo jiri jiray ka ogaan jiray suugaantaas qofba qof u dhiibi jiray ma aha oo gabya iyo fanaan iyo mid ma aha shacab weynaha xafidi jiray dadna shacabka kale ee soo socda ayay u sii gudbin jireen ya saasay ahaan jirtay marka waxaba jirtay suugaan ka hadlaysaba oo la yiraahdo waqtigu wuu sunsumaya midna waa la sugayaa soo jira ma noole qarni walba wuu socon safna uu ka daba dhalan hadba kooda sare kaca waxa sahayda uga taga kii hore u sagootiyay dadka seexda mooyee sinjigii awow iyo sumadaas noolaan waxa adag silsilada Soomaaliya waa sida dadku jeceshiin sad bursiima ma aha garashada saboolkii waxay sahansanaysaa waa sayle iyo hub murtidii iyo sarbeebtii iyo suugaanta tiinii way sal guuri doontaa mahmaahihiisula sibiq bay u wada lumi saadaa la maqanaha oo caruurta dhalan doonta mustaqbalka saadaa la maqanaha siqiirkiina aan dhalan iyagana sadkoodii kuma simi karaysaan waanad seejinaysaan wadadka af Soomaaliga dhayalsanaya ama af Ingiriisi ku boodi oh my god baba yani af kale ku boodayaan xayeysiinayaan hadaynan keenaa saa u haynin wuu lumaya marka hadii anagu kaalintaas aan qaabilsanayn inuu afku luma ma doonayno aad iyo aad sidoo kale waxaan maqraati ka ahay adigii iyo Hibnuure iyo ma sha Allah waxaad dibadaha ku maqnaydeen muddo dhowr iyo 20 sano ah intii caawa ma galabta inuu sheekaysanayno kelmad Ingiriisi afkiina kama maqlin laakiin bulshada kale soo
qofkaas iyagoo laga yaabo inuu sanad soo joogo wadamadaas barbaayo oo ingiriiska ugula sheekaysanaya taas marka waxay muujinaysaa in fanaaniintu ay yihiin dadka kaydinayo mar walba afkooda jeclayn inuu ka luqo taasina waan idinku hambalyeynahaya waata hadda marka ma is leedahay suugaantaas aad ka sheekaysay leedahay aad inoo sheegtay inay tahay dhaxal ma is leedahay weli waa la kaydiyaa oo weli dadku way kaydiyaan mise waxaa is leedahay booskeedii banaayahay waxaa la yidhaahdaa khatar afafka khatarta ku jira afkeenu ka mid yahay waayo dadkeenu aadna ilbaxumaa ilbaxnimadeenu waa iska qarjacmood leh weliba qofku wuxuu ku dadaalaa si ilbaxnimadiisa loo saxo inuu af ingiriisiga aad uga hadlo inuu afafka kale aad uga hadlo waxa weeyaan ilbaxnimada inagu cusubaynu boobayna baad moodaa laakiin ilbax waxaa qofka afkiisa haysta ee dhaqankiisa haysta ayaa ilbax ah marka afkeenu khatar buu ku jiraa baa la yidhi laakiin waa la dadaalayaa insha allahu in afkii balla wacyigeliyo dadkii oo suugaantii la sii hayo oo wax loogu sheego dadkii haddii had iyo jeer wax loogu sheego masajyada waa afku ma lumayo musiibada adduunyada iyada oo macalina waxaan filaya inaad doorka ahayd qaybka ahayd waxba naga xasuusin kartaa rubaayadaasi doorkaad ku lahayd doorkaa waxaan ku lahaa gabadh soomaaliyeed oo ilbaxa oo wax baratay laakiin haddana dhaqankeeda haysata oo dhaqankeeda jecel oo dhaqankeeda horumarisa marka 4 hablood baan ku matalaynay dad badan baan ku matalay laakiin 4 hablood baan kaaga soo qaadaya qayb yar gabdhahaas waxay western iyo ilbax yar magaal bay iska dhigeen saraawiil bay xidhnay annaguna hidiya dhaqan baanu xidhnay marka maadaama aanu hidiya dhaqankii xidhanahay waxayna lahayn badawaatiin annaguna waxaan leeyahay idinka badaw oo dad kale aad ku dayanaysaan marka waxa ku jiray heesihii gabadhay baa naga soo horbaxay markaas waxay way qosqoslayaan waqti wana xamanayaan basaan waxaan leeyahay eegmadan hadlaysiyo isha waxaad ka leedin afka maad ka sheegtaan markaasay leedahay mid armad ugu xanaaqdaan markaasaan leeyahay onkada u dhaxeedha xeesha basay leedahay ayniga da'diina iyo aragtiin kala weyn waa maxay awaaraha oogadiina saareen mariyaha islaama maxaa idin xidhay sida annagoo kale miyadaan ilbaxahayn saraawiil bay xidhnaayeen moogta adigu weesaan isku qasaynay waxaan leeyahay heestii ahayd habeenoo hebedka geel hashaan maqasha iska celin haraatiinkaanay dhalin markay hiigaan nirguhu jilaalkii bay hadhaan hambana waa la ysku nacay higaadana igu afkaro dharaarba ninkaan ka helo habeenkii kuma dhexee hantida way ii dhan tahay xishood hodan baan ka ahay xayihii baan soo huwaday hablaha soomaaliyeed iyaduna waxbay tirinaysaa hanyari waa loo dhintaa hagoogtaa waxaa lahaa bay leedahay kuwii waa heermi jiray sidaan sheekada ku helay aad iyo aad riwaayad aad u suugaan macaan bay ahayd maasha allah waa tahay aad baad umahadsantahay cabdi raxmed kaahin waxaan jeclay inaan su-aal ku weydiiyo riwaayadaas adduunyada musiibada adduunyada iyada oo macalin ah qabiyo iyo riwaayado kale aan arkayba inta badan riwaayadaha waxaad ka qaadataa doorka gabadha dhaqanka iyo asluubta haysato ma adigaa doorto mise abwaanintaa kula jeclaado wallahi anigu riwaayado badan oo xitaa aan ciyaalka xaafadda ka matalayna way jiraan laakiin ilaahay amarkii kuwa la duubay hadda masiibada oo kale oo ina wanaagsan ka ahaa way duuban tahay qabyatu ina wanaagsan baan ka way duuban tahay ilaahay amarkii nasiibkayga kuwii aan ahaa ciyaalka xaafadda ma duubna dhaqankana de waan aqaana anigu waxaan ahay dadka Soomaaliyeed gobolada ugu dhaqanka maaragtay hidiya dhaqanka had iyo jeer lagu tuumo ayaan ka imi malaha waxaan oran jiray mareer baadiyeena mid ay qarinaysaa aad baad u mahadsantahay hibo maxamed hudoon hibo nuuraan soo laabanaya marwo waxaan ku weydiin lahaa xilligan waad aragtay siyaasadda Soomaaliya halka ay marayso fanka hal doorku kaga jiraa baad is leedahay hal doorku kaga jiraa wax weeyaan kaaga weeyaan fanku siyaasadda haddii fanaanin fiicani goobtaa joogto badanaaba sida hagaagsan bay ku hagaan qaar marmar maaragtay dee si kale lagu hagaana way iska dhici kartaa laakiin kolley fanku waxa weeyaan tilmaamo fiican waa toosiyi oo dadweynahan hanuunina haasaawinaa danta waagnaa waa noocaasoo yacni ka wada dhexeeya maanse waxaa jirta sadii sheegtay adoo culisay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland maansidaasi haddaad hal iyo laba noogu dhufan kartid maasada waxaan yar jeclaan lahaa maadaama aad weydiisay dalkeenu marxaladuu soo maray inaan mid yaro ka horeysa tiriyo isagana aan gabagabada ka dhigno
markaa waxaan idhi haddaan dib u xaadsho haddaan dib u eegon dul xaadsho dembiyadii dagaalkii sokeeyaha dalkeenna ka dhacay inagoo isdilay oo dalkeennii adkaa iyo dunyadiiba dukundaakan ka yeelay meydkii dadkeennuna dariiqa daadsan yihiin oo dugaaguga ku dareeray taariikhdu dadkay bartaa dabkii daraata ku gubay dambaskiisa inaan deris lala ahaan taariikhdu dadkay bartaa dekanooyinkii iyo dembiyadii la kala galay inaan dib loogu laaban taa waxaa daliil u ah mahmaad dooro baa tidhi caanihii weelka ka daata dabadood baa la qabtaaye haddaan daaha ka qaado dayicii nagu raagiyo diiftii na haleeshay dar ka mida diiftii na haleeshay sidaan uga dabaalana dar ka mida duqaydeenna erga weyn isku soo dumayo dowladnimadii dib u raadshay madaxweynaha dalkeenna labaad ismaaciil cumar geelana darmadii dib u heshiisiinta u horeysay buu carta inoogu diyaarshay durtaba cabdiqaasim baa duubkii la saarayoo doodad dheer dabadeed madashii lagu doortay doorkii xigayna cabdilaahi yuusuf baa imbagaad lagu doortayoo dowladdii oo idil buu dalka ku soo celiyo baydhabuu dejiyey doorkii xigayna sheekh shariif oo dagaal weyn ku jiraa loo doortay madaxweynihii ku meelgaadhada u dambeeyey doorkii xigayna dowlad weyn oo federaalah ayaa laysku soo dumayoo dowladaha adduunkuna aqoonsibay qalinka ugu duugeenoo xasan sheekh baa lagu doortay isku soo wada duuboo baarlamaankan dul iyo hoos doorkan la isku soo darayee dalka horumarkiisiyo loo xulay danguudow dardaaranka dadweynuhu waxay doorkan leeyihiin madaxdii dalka yagay haddii aad dadaashaan oo danyartiiyo maatada danahooda dhowrtaan daacadna ugu adeegtaan diinteenna wacan iyo distoorkana ku dhaqantaan dalka aynu leenahay afartiisa daafoodna dib u heshiin ka dalabtaan haddaad dawga qaadaan oona daadahaysaan dooroonayaalow duuga nolosha aayaha bogga dahabiga abaan idinku daabacaynayo dib baan idiin dooranayna waanu daalannahay oo diif iyo colaadaa noo kala dambeeye daayina wallahay oo adiga deeqda bixiye naga dulqaad colaadaha taas waa taa ilaahayna hay naga dulqaado qaybihii dambe barnaamijkeenu soo gaarnay inaad qacna uga siiso midii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland kadibna barnaamijkeenu soo xidhanayna bismillaahi raxmaani raxiim dalkeenna mugga weyne mahuraankee meeshii aad ka eegtaba macnaha weyn ku fadhiya ee equatorku maro Jubbaland baa u muhiimsan meelihii nabadii meel sare saaray ee madaxweynaha dowlad goboleedka mudane axmed madoobe iyo maamulka iyo bulshadiyo ciidamadeenna miiganow mabsuud baan idinka nahayo nabadii waa mulkiseeni waad mulkideeni salaan muhiima oo mugle naga guddooma aad baa mahadsan tahay ilaahay maskaxda ku daayaan ku leeyahay maantaan sameeyo oo igu yar cusub tahay haddii aan waxoogaa waqti u heli lahaa ka sii qurxanaan lahayd oon xafidi lahaa waa tahay dadka hal abuurka ama abwaaniintaba waxaa lagu yaqaanaa dareenka markaas ay arkaan marxaladaas markaas ay arkaanba waxbay ka curiyaan aad baan kuugu hambalyeynaya hiba maxamed hiba nuuraah waxaan jeclahay fariinta ugu dambaysa ee bulshada Soomaaliyeed u dirayso barnaamijkeenu soo gabagabaysanaynaay maxay tahay barnaamijka ugu dambeeya ee bulshadeena u diri lahaa ugu dambaysa u diri lahaa waxa weeyaan adduunyadu way wada dagaalantay inaga ka hor hadday dowladda Afrikaana tahay hadday Eeshiyaan tahay waa la isdilay qolo waliba 3-4 sanadood intay dhagaha iska garaacdo iyo dowladnimadoodii soo ceshanaadaan oo dabadna dowlad qiimo la noqdaan inaga waa eebaysanahay 30 sanadood buu dagaalkeenu socdaa waxaan ka codsan lahaa oo si kalgacal looga codsan lahaa dadku dagaalka wuu ka daalayay inaan nagu uf idhaahno waynaan ka daalin waayo xoolaheenii dagaal buu ku baxay in caruurteennii dagaal bay ku baxday waayeelkeennii dagaal bay ku baxday intii kalena habqankii adduunyaday u kala carareen marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa nabad aad baa mahadsan tahay cali raxmad kaahin fariintaada ugu dambayso waa wadii mar weyn lahaa bulshadan jecel inaan la dardaarno
haye waxaan kula dardaarmaynaa dadkan Soomaaliyeed ama dadkana daawanaya inay wadankooda ilaashadaan madaxda kaliya ma ilaashato wadanka dadka oo dhan buu mas'uul ka saaran qof kasta mas'uul baa saaran nadaafadiisa in wadanka la ilaaliyo in dhirta la ilaaliyo dhirta la jarin oo la gubin oo xaaba laga dhiganin wax walba in la ilaaliyo u baahan yahay mas'uul inaga wadanka iska leh cidina ma laha muxuu ahaa ayaan anigu caruurtayda wada oo Mareykan gaari dhex socda gaari ku dhex wadana Mareykanka dhexdiisa ay caruurtayda buskud iyo bay cunayeen nacnaciyo waraaqihii bay tuureen daaqada ka tuurayaan gaarigii nagu xigay oo show dhigu ku koray muraar dilacsan hoonka nagu tumay agtayadu soo maray aybu noo dhigdhigay uu leeyahay way ad wadanka wasakhaynaysan annaga nacnac baan furnay warqad waa iska easy soo maaha dadkeenu foosta qashinay laamida dhexdeeda ku taxayaan inkastoo anigu arkay hadda ay nadiif tahay Kismaayo ma sha Allah waan ka helay laakiin waxaan oran lahaa dadweynaha Soomaaliyeed wadankiina ilaashada nabadiina ilaashada quruxda wadanka ilaashada akhlaaqdiina ilaashada walaalooba caalamka dayaxu higsanaya siday dayaxa boosas uga heli lahayn bay marayaan annagana wali qofba qofku qori inuu ku taagan rabaa marka geeraar yar baan tirinaya oo ah adduunyadu maanta halkay maraysa waxa weeyaan haddaan gobolkay ku jirin yani dadkaygu hadduuna istilayni wey haddaan gobolkay ku jirin jirdaha may goyn karteena geedkii mahmaah ku yidhi gudimo daabkiisu galay bulshada waa laba gudboono gefkoodaa dhigay halkaa gudculku daahiisa rogay gunyadii way ood leedahay goonyaha bahal baa kiciyey cid kastaa kusoo hawaysanaysa markii dadkaagu dayacan yahay uuna caqligoodu gaadhin in wadaniyadoodu ay daciif tahay goonyaha bahal baa kiciyey gaadhkii soo jeedi laha gaadiidkoodu xadaa gamboor bay daaqayaan garaadkay lacolyiinoo guushaa lagu xooqiyaa kuwii qoomiyadda geeyey waa adduunyadan dayaxa higsanaysa kuwii qoomiyadda geeyey shullaha gobonimada dhigay waxay gaadheen dayaxa guhaad iyo ceelku nool hoos gabi oo soo rugmaday hadhaggeed bay yuururtaa hangoolka garhkiisii iyo waa inaga hangoolka garhkiisii iyo gantadii way kala fog tahay mid geesbari buu jiraa midna wuxuu degay galbeed gamboor bay daaqayaan garaadkay lacolyiinoo guushaa lagu xooqiyaa adduunyadan godobtiyo gadaafada loo wanqalay adduunyada gulufkiyo saadaashoo gufaacday halis ciddii gooldaloolada leh gumaysigu ogyahay golaha fiidtoogu yaal waayo hadda iyadoon cidiba ku dilin xabad ku qaadanin fiidtoobaa lagu leeyahy maba hadli kartidba hadalkaa lagaa xidhayaa adoo halkaa joogaa meeshii la doona lagaa dilayaa dhaqaalaha lagaa dilayaa waxaa lagaa dilaya inaadan hadli karin cod ku lahayn caalamka golaha fiidtoogu yaal gartana kiilihii ku qaday taladan soo guda madow dadkayguna geesigay gaashanqaadkooda dilaan gamboor bay daaqayaan garaadkay lacolyiin oo guushaa lagu xuuqiyaa ummadda Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa wixii dhacay way dhaceen inay maanta ka bacdi ay walaaloobaan waynu daalanahay dibadii waanu ku daalanahay caruurii way naga xidhxidhayiin qaarkood in la iskarabsado in dagaal la dhaafo in wax la qabto beeraha energy beeraha in lagu bixiyo gaajada si aynu uga baxno haddaan madaxda lala shaqaynin waxba ma qaban karaan keligood caalamku wada shaqeystaa madaxdu waxa weeyaan message-ku may gudbiyaan mooyaane shacabku isaga wadanka ka shaqeeya barta in wadaniyadu ay tahay inaad wadanka ka shaqeyso inaad ka ilaaliso muxuu ahaa qashinka magaalada ka ilaaliso inaad wadanka yani haddaad shacab u ilaashanin cid ku shaqeynaysa male so nice aad baad mahadsan tahay oo fariin qiimo badan aad baad mahadsantihiin labadiinaba mar kale Kismaayo ku soo dhawaadaya Jubbaland TV intaba egraan aad baad mahadsan tahay waa ka gudoonay sida ay nabadgelyo insha Allah aad mahadsan tahay daawadayaal inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeeni gaarka ahaa ee martiigu ahaayeen gabdho kamid ahaa hoboladii waa bari isla markaasina halawro isla markaasina maamooyin waaweyn oo fanka Soomaaliyeed kule maqaam sare aad baan ugu mahad celinayaa waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradii dhanka kaamiradaha iyo farsamada inoo joogay waa Bashiir Maxamed Nuur Bashka iyo sidoo kale walaalkay Daahir Cabdul Ali Daahir Junior barnaamijka waxa idin la socodsiinaysaa anigoo Ilhaan Maxamed Cabdi Ilhaan laki guud ahaanba saaxiibadii barnaamijka isku soo dubradeen waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin intaaynu barnaamijkan mid ka xigay ku kulmi doono guud ahaanta waxaan idin leenahay dalka nabada iyo isku duubni